هل هو يجرب absolutely no haddii nimankan siyaasiyiintii inaan horta habeendeeda waa sharaxay marka diyaarinayay anu inaan habeen walba inta halka soo fariisto marba yimaadaan u sharaxo warqaas ay u dhacay oo two reasons laba question baa sidii sabab loogu socday waxa loogu socday in mar la yiraahdo madaxweyne ku xigeen baad meesha ka marna madaxweyne maxaad u qabatay dadkan SSC su'aasha oo ka boodi simbal markii u dambeysayna de asar kaliya nasi ciidan adag baan u sameeyay arrinta labaad in looga fadhiyay waxay ahayd markii la qaybsanay kuraas how come ad majarteenka ugu ogolaateen inay laba meelood saddex meelood laba ay qaataan kuraasta ee Puntland way ugu ogolaateen uu ka wareego waa ka yiri 17 koodu dhulbaanta aduu doono madaxweyne ku noqon kara number 3 maxaa xal hada dhulkii waa maqan yahay adiga meesha madaxweyne ku xigeenka ahaa markii yagoori iyo garowe la qaatay haddana ilaa halkaas la maraya maxaa xala marka ilaa horta live radio ahaa qoniyadan ceegaag online oo anigu aan ka socday iyo radio Boston baa qaaday marka recording laakiin waxa sameynaysa qolada mid kale live radio ayuu hada media taqaan inaad fahmayso live wuxuu yahay live radio waa loo sheegay qofka bini aadanka afkiisa marka ma xukuntid qofka bini aadanka su'aasha la weydiiyay ahayd inaad raweyn ismadu doorkooda ku yeelan karaan baa la yiri in warma la maqlaya Firefox kan muxuu warso la maqlo والله خير بك حوالي يوم وقت إن أروح لويدي سؤال مسجنه اسمه الدور كهنا كلين سيمبل وعير اسمه قار ونكسب بأجر ولا كجوجين هذا ولا ما يكسر اسمه ولا الويري ما إلى الرقاص هذا الخوف نفسه هذا أرتمو ويديني إن نفصل إلى هو ويديني شو أشياء وهالويري اسمه الدور كهنا كلين اسمه قار wanaagsan oo loo shaqeyn karaa jira oo rag wanaagsan laba garab jaamaciyiin daba gooyay buu yiri way yahay bali marka aan ismada halka kaga gudub sug buu yiri marka inaan adeeru simple qofka lama eeday waxaan media weey anigu am not professional wariyaa maahi laakiin sometime waxa la isticmaalaa temporary ninka la yiraahdo masagan oo inaad arag cali maanta waxa weeye dhulkeeni waa kala maqan yahay dhibaatana haysata Soomaaliland baa dhulana ka qabsatay Puntland baa dalaal ka noqotay waxaynu u baahanahay wax temporary dadkii lagu kiciyo oo qoladana lagu yiraahdo waa dhulkan isaga baxay idinku ma leedin Puntland la yiraahdo war talk off qayniyadiina waa fahnay marka media temporary waxaan isticmaalaynay dadka systemka laakiin ninkii fahmaya ninkaan fahmayna isagay u talaa haddii nin waliba oo ninku difaacay adeerkayga meesha madaxweyne ku xigeen ama madaxweyne ka ahaa lama hadli karo waa qalad waxaas ninka Puntland ama madaxweyne ka noqdo ama madaxweyne ku xigeen wuxuu liable u yahay dadka dhulkan ka soo jeeda oo dhan marka anigu masagano inaad pointiga ka socoto ma fahmayo haddii anigu waxaan ku siinayaa addresskayga everything haddii aad u baahan tahay legal inaad dacwayso welcome haddii inaad dacwaysaad rabto welcome laakiin ujeedada of course maxaad ka hadlaysaa miyad marka pointiga inaad u fahanto way dad baa waxay ka xanaaqayaan hadda garaadkeygii baa wax la yiri in garaad wax la yiraahdo geesho welcome waa qalad absolutely inaad arka cali laakiin reality haddaad rabto ولا عاقل ولا قرات ولا عد والبا midba hadda soo galay dadka waxaan ku tusaya dadkan jaahilnimadooda mid hadda dilay la ilaahay soo galay maxaad oday oo ceebis waa nacas he doesn't know what he's talking about marka nacas walba lama qancin karo pointiga inaad fahanto way marka waxa way nimanka dadkan ka tagay dhulkan meel walba tagay in lagu yiraahdo way war hadda hadii aanad ambition way lahayn hasku tagin meesha waa inuu ninkiis yiraahdo way kamaanti jooga hadii la xisaabtamo masagano كبريتو
ayaa garanaya wixii uu ka joogay waxaanad aqoon lahayn waxaanad powerkeeda lahayn waxaanad karismadeeda lahayn waxaanad mustawaheeda lahayn waa inaanad marka horeba faraha la gelin marafoo soo gaabinaya marka pointiga saa u faahnaado siimbare ha oran miidiyaad meel kaga dhacay oo reerkani ilaa uu xisaabtamo oo nin laysu qabsado oo lays xagxagto oo runta laysu sheego wallahi wax ka hagaagayaan jirin ka war dhulkuna saasuu ku soconayaa marka pointiina rasaa ila fahan wax weyn oo media judgment baan sameynaya iyo court of law baan ku geynay maxaa court of law ah qayb wuxuu fadhiyaa Hargeysa what is doing there macnuu ku fadhiyaa waa maxay waa 9 jir isaga iyo ragga la mid in la xisaabtamo way hiirad inuu yiraahdo adeerkii lama hadli karo ma waa inuu indhaha soo ku dhuftaa simbali ummadan waxa isku raacaan umbad matili kartaa haddaad iyaga siyaasi u tahay marka haddayna pointiga isla fahmeen masagano